بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلانتي هابون إيسكو سو نقد مركله صاحب بيال عشركينا maanta waxaynu ku baran doonaa photo editing-ka amba qaabka sawirka loo hagaajiyo basics-kiga amba waxyaabaheeda asaasiga ah hadaba waxyaabaheeda asaasiga ah intaynaan iska oranun maxay tahay sawir hagaajintu sawir ayaa la soo qaaday kadibna sawirka waxa loo baahan yahay in midabkiisa wax laga bedelo quruxdiisa iyo dhalaalkiisa iftiinkiisa kor loo kiciyo isagii dib loo nuuriyo kadibna sawirka marka dhalaaliso ayaa meeshii aad doonaysay iyo cidii aad doonaysay aad u diraysaa iyo design-kii aad doonaysay aad u adeegsanaysaa casharkeenan maanta inta aynu soo sheegnay iyo in kale oo ka fara badan ayaynu ku baran doonaa bal marka hore aynu intaa kaga tagno faahfaahinta aynu halkaa ku haynay aanaynu u gudagalno samaynta casharkeenan amba create garayntiisa waxaynu soo furan doonaa sawirka aynu doonayno inaynu soo furno saddex marxaladoodba waynu ku soo furan karaynaa marka koowaad waxaan tagi karnaa halka ay ku qoran tahay file kadibna waxaynu leenahay open ayaynu dooranaa kadibna markaynu open nidhaahno sawirkii aynu doonaynay ayaynu soo dooranaa kadibna open baynu leenahay kuwan kale aan naga soo xidho no baan leeyahay kan iga soo xidhe no baan leeyahay isagana miyaad safe garaynaysaa bii guri may baan ku uri nood wax kale ma ahayn insha allah sawirkaygii imika waa soo furtay haddaan doonayo inaan qaab kale oo na soo furto waxaan samayn doonaa inaan file doorto kadibna aan new yidhaahdo new marka la yidhaahdo page cusub soo furo buu leeyahay cabirkii aad doonaysay ayaad bartan gelin doontaa kadibna create ayaad leedahay backgroundka dambe iga qari baan leeyahay anigoo xaggan yar kasoo furaya isha yar kadibna okay iska siiyuun isha yar iga xidh baan leeyahay kadibna si aad usoo geliso sawirkii markaad layerkiishii ka baktiso file baad tegi doontaa kadibna waxaad leedahay place embedded kadibna place embedded markaad idhaahdo computerkaagii buu ku dhex geyn doonaa bartii uu ku jiray computerkaaga sawirkii ayaad halkan kasoo dhex dooran doontaa aad u baahnayd kadibna pictures igu dhex jiray saved pictures ka sii dhex galaya sawirkaygii baan dooranaya please baan leeyahay sawirkaygiina mar labaadkii muxuu sameeyey wuu soo dhigay haddana qaab saddexaad baa jira oo sawirkaagii usoo dhigan karayso qaabka saddexaad waa maxay waa inaad marka hore dul tagtaa folderkaagii sawirkii aad doonaysay haddaad 5 sawir doonaysay 5 sawir baad soo select garaysanaysaa dhammaantood kadibna 5 sawir marka soo select garaysato waxaad samaynaysaa inaad mar kaliya inta soo jiido markay gacantaada saarso kale 5 ay kugu dooran yihiin inaad dul tagto iconka photoshopka ee xagga hoose kaaga muuqdo computerkaaga inaanu imika shaashadan aynu duubayno inaanu kaaga muuqan baa jirta laakiin se iconku xagga photoshopku xagga hoose ayuu kaaga muuqdaa mar walba oo inta yar hoose waa kaysa soo dhiga photoshopka marka applicationkiisu ku soo furay kadibna isagii ayaad la dul tagi doontaa markaad la soo dul furto adigoon ku soo dul deynin ay weli saa ku soo saari doontaa waad ku sii dul deyn doontaa xaggan shaashada ku sii dul deyn maysid laakiin photoshopkii ayaad ku sii dul deyn doontaa amba adigoo sidii u sida adigoo 5 sawir sidii u sida aybaad san leedahay kadibna waad ku sii dul deynaysaa 5 baa imika way noo sii daay mid walban xaggan siiyo waan aqbalay way dhigaya haddana kii labaad buu leeyahay miyaad aqbashay meemaan aqbalin baan leeyahay continue place and edit okay baan siinaya kaawan kaa tuura kan iga tuur baan leeyahay okay baan sagana siinay kan miyaan kaa tuura mee kan needi saasaad u kala dooranaysaa intii aynu dhignay oo dhan xaggan ayay kasoo muuqanaysaa waxaan malaynayaa inaad 5 qaab aad wax badan aad ka fahanteen marka page-kan waan iska soo xidhayaa no baanan leeyahay sawirkii hadaba si aynu soo furno maxaynu tageynay file baynu tageynay open baanaynu dooranay kadibna sawirkii aynu doonaynay ayaynu soo furnay okay baynu siinayna sawirkeenu waa kan noo soo furmay hadaba sawirkan inoo soo furmay imika quruxdiisu way nala liidata wax badan oo ka khaldanna wuu jira marka waxaan doonayaa inaan waxa ka khaldan aan u saxo oo midabkiisa dhalaaliyo marka hore shaygan imika waxba kama arkin hagaagsan Soomaa bal in yar kadib balsaynu ka dhignaa hadaba aynu eegno waxaan tagi doonaa xagga ay ku qoran tahay adjustment kadibna waxaan dooran doonaa gacanta yar ee ay ku qoran tahay variance amba create new variance baa ku soo baxaysa sidoo kale inay variance ay tahay maxaad ku garanaysaa xagga imika waxa ku qoran add an adjustment ku soo dar adjustment cusub laakiin haddaan taa dul istaago magaceedii buu soo saaray gradient map buu igu soo qoray halka laakiin markaan taa dul istaago muxuu soo qoray variance kaas soo dooran doonta kadibna waxaad leedahay xaggan midabka variance-ka kor igu yara dalac ilaa meelaha kolba aad xaggan adigoo image-ka ka eegaya xaggan adigoo image-ka ka eegaya sawirkaaga kolba markuu soo yara dhalaalayo uu dhalaalkiisa kolba eeganaya ayaa waxaad samayn doontaa inaan ilaado variance-kaygii waa intii marayaa in yar meelaha 80 iyo 80 kale iga dhig sawirkaygii ma ku dhalaaliyay haddana waxaan dooran doonaa xagga hoose ku qoran tahay selective color amba time kay dooran xaggaasad magaceeda mar walba ka khasban doontaa hadii ay icons-kan iskaga ka eekadaan kuwan inay iskaga ka eekadaan baa laga yaabaa laakiin xagga magaceeda akhriso waa inay ku soo baxdaa selective color waa midabka soo dooro kadibna midabadii kamid aan soo dooranaya midabkii casaankan aan soo furnaya
xaggan baa waxaan kasoo dhex dooranaya midabka casaanka hadduu midab kale kuu dooran xagga ay ku qorantay black ayaan in yar dallacaya oon dhinaca iftiinka u dallacaya haddaan iminka soo xidho oon sawirkaygii dib u eego maxaan sameeyey wejigii madoobaa waan soo yara caddeeyey gamcihiisii way caddaadeen haddaan iminka kan xidho kan aan xidho sawirkaygii markii hore saasuu ahaa iminkana sawirkaygii saasaan ka dhigay laba shay oo isku dhow marnaba maaha laakiin se cillad baa jirta caddaankaygan wuxuu saameeyey shayadii markii hore casaana uu saameeyey oo iyagiina wuxuu ku sameeyey inuu kusii sameeyo un sidoodii hore inay ahaadaan talow seen uga biinaya baydin isweydiinaysaan iyaduna dhib ma laha ee bal stabiskaygan yar iyagana daawada waxaan tegi doonaa erasure tool oo casharkan ka horreeyay soo baranay amba xarafkii e ayaynu taaban doonaa waa inay kuu doornaata halka ay ku qorantay selective color kadibna adigoo soo dhawaysanaya ayaa shaygii meel wal oo hore u casayd ayaa waxaad samayn doontaa inaad ka biiso iminka shayga halkaa yaalla wuu yaro casaa waxaan samaynaya inaan ka yaro biyo caddaankan aan dul dhigay laakiin se iminka cillad baa jirta gidaarkii hareerihiisii bay iga gaadhgaadhay looma baahna inay kaa gaargaadho control iyo ser baad leedahay si aad dib uga soo noqoto kadibna aayar baad si yaroo qumaatiya aad u dul marinaysaa dhag iminka saad arkaysaan isagii oo keliya taa ayaa mariyey wixii kaloo dhan maana marin xaggan iminka intaa yarna waan ka baabiin karaya wax walba waan ka baabiin karaya aan u baahdo haddaba si aan halkaana uga sii socdo sawirkaygan iminka waan edit karayay haddana fariyaskii baan ku noqonaya in yar baan fariyaskii aan kor ugu yaro qaadaya haddaan iminka eego dib buu yara casaaday sawirkaygii si aan iminka dhammaan waxyaabaha saameynahan aan soo furto dhan hal meel aan iskugu hubsado ta ugu sarraysaan dooranaya kadibna anigoo shift u haya ayaan ta ugu hooseysana taabanaya kadibna control iyo g baan isla qabanaya hal group buu iga dhigay wixii oo dhan hal meel ayuu isku soo ururiyay saameyntii aan sawirkayga ku daray muxuu sameeyey laakiin iminka haddaan baktiyo sawirkaygu sidii hore kusoo noqonaya haddaan shidana sawirkaygu qurux badnaanaya laakiin si aan isku mid uga sii dhigo oon iskugu wada daro waa inaan isagiyo sawira aan dib u save gareeya seed u save garaynaysaa iyadana haddii aynu isweydiinayno control iyo s baad qabanaysaa control iyo s markaad qabato ee shaashadan ay kusoo baxdo shaygan iminka aynu samaynay waa asa photoshop file waa sawir amba waa muuqaal photoshop haddaan iminka mid ka soo xidho waa muuqaal sawir maaha iminka shaygeenan weli waa photoshop file waayo saameynaynu kusoo darnay xaggan aynu group u nidhi saameynahani haddii iminka aynu nidhaa sawirkii un dib inoogu qaada oo aynu qaadano un sawirkeeni dee sawirkii un baynu la tegaynaa laakiin saameyntii ma qaadanno laakiin si saameyntii oo sawirkii ula socota aynu dibadda ugu saarno waa inaynu qabanaa control iyo s kadibna aynu xaggan aynu ku qornaa magaca aad u bixinaysid haddii horena magaciisii hore aad ku daysaa kadibna xaggan photoshop bsd fileka ku ahayd aad ka baxdaa aad ka doorataa bng file kadibna maxaad odhan doontaa safe oo keliya taad siin doontaa wuxuu sameeyey inuu bng format ayaan kugu save garanaya buu yidhi haye baan ana ku yidhi xaggan hoose waxaad arkaysaa inuu cararayo oo inoo save garaynayo iminka si toos ah ayuu inoogu dhameeyey inuu inoo save garayo haddii aynu ku noqono computerkeenii oo aynu dib u eegno bal sawirkii aynu soo hagaajinay guud ahaan waaba kan waxaan u malaynayaa inay idin wax badan ka fahanteen qaabka loo hagaajiyo sawirka intiisa asaasiga ah wax walbood u baahato inaad sawirkaaga ka dhex hagaajisato qaabkaasoo kale ayaad u hagaajisan doontaa casharka ku xigana intaynu isugu iman doonno waa aniga oo idin leh weli kooraskeenii bilow buu joogaa iyo welibana applicationkii photoshopba tan iyo intaynu isugu iman doonno casharka ku xigta waa aniga oo idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan